Assalaamu calaykum. Sanada 2018 waxaa ka harsan maalmo qura. Waxaa la soo calaamadeeyay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay adduunyada. Mawduuceena maanta waxaan dib u milicsanaynaa dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee siyaasadda, dhaqanka, sayniska, deegaanka iyo isboortiga ee sanada 2018. fadlan inta aan u gudagelin mawduuca, subscribe saar si aad noo dhiirigeliso una sii gudbi asxaabtaada si ay iyana u gaarto. sanada 2018 bishii Abriil waxaa indhaha caalamka wada qabteen kulankii taariikhiga ahaa ee hogaamiyayaasha labada Korea, Kim Jong-un iyo Moon Jae-in. waxaa labadan hogaamiye awood yeesheen in markii ugu horeysay ay kulmaan laba hogaamiyo ee ka kala socda labada Korea, maadaama sanado badan oo dagaalo qaraar ah dhex mareen labadan dal. waxay hogaamiyayaashan saxiixeen heshiis rasmi ah oo dagaalada labada Korea lagu joojinayo iyo in xukuumadda Pyongyang ka takhaluso samaynta hubka nuclear-ka oo cabsi badan ku haya South Korea iyo dhammaan dowladaha gobolka. Jamal Khashoggi waxa uu ahaa wariye caan ah waxaana ku qora wargeyska Washington Post. waxa uu aaday qunsuliyadda dalkiisa ee ku taala Istanbul si uu uga soo qaato warqado la xidhiidha arooskiisa oo dhici lahaa. saxafigan rugcadaaga ah ee Sacuudiga u dhashay waxaa lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga waxaana uu ahaa shirqool kaas oo ka qayb qaateen ciidamada Sacuudiga ee sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo meedkiisa meesha ka saaray. ugu dambeyn maalmo badan oo ay Sacuudiga beeninayeen dilka wariyahan waa ay qirteen in lagu dhex dilay qunsuliyadda kadib baaritaano badan ay sameeyeen Turkiga iyo waliba CIA-da Mareykanka. waxaa lagu eedeeyay amiirka dhaxal sugaha ah ee Sacuudiga waxaana cadaadis caalami ah saaray beesha caalamka taa oo qalqal gelisay kursiga dhaxal sugaha boqortooyada. madaxweynihii hore ee Mareykanka George H.W. Bush ayaa geeriyooday isagoo 94 jir ah. waxa uu soo noqday madaxweynihii 41aad ee waddanka Mareykanka intii u dhaxaysay 1989 ilaa 1993. kadib 8 sano uu madaxweyne ku xigeen u ahaa madaxweyne Ronald Reagan oo isaga ka horeeyay. George H.W. Bush xilligii uu madaxweynaha ahaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ka qayb qaatay gabagabadii dagaalkii qaboobaa ee dunida iyo bilowgii dagaalada Ciraaq ee looga soo horjeeday Saddam Hussein. sababta rasmiga ah ee dhalisay dhimashada George H.W. Bush lama shaacin, balse sanadihii ugu dambeeyay waxa uu la daalaa dhacayay xanuuno soo wajahay. sagaal iyo 10kii May ee sanadkan, Meghan Markle waxa ay ku biirtay qoyska boqortooyada Britain. Aktaradan Mareykanka ah oo guur hore u soo martay waxaa guursaday Amiir Harry. kadib xaflad aad u sareysa oo ay ka soo qayb galeen marti fara badan ayaa ka dhacday magaalada London. Meghan Markle ayaa si rasmi ah kaga mid noqotay amiirad ka mid ah qoyska boqortooyada Britain. Ilhaan Cumar oo Soomaali Amerikaan ah ayaa ku guuleysatay Koongareeska Mareykanka. waxaa laga doortay Minnesota iyada oo noqotay mid ka mid ah 2 gabdhood oo Muslim ah oo markii ugu horeysay ku biiray aqalka Koongareeska. Ilhaan oo matalaysay xisbiga dimuqraadiga waxa ay heshay codad gaaraya 78.4% iyada oo booska ka badashay Keith Ellison. waxaana saxaafadda Mareykanka aad u hadal hayeen inay tahay gabadhii ugu horeysay oo madow ah, Muslim ah, qaxooti ah oo ku guuleysata golaha sanadka Mareykanka. saddex dayax-madoobaad ayaa dhacay horaantii sanadkan. habeenkii ay ku beegneyd 27 bisha Julaay ayuu dhacay dayax-madoobaad naadir ah markii ugu horeysay kadib 1866. markaa uu dhacay mid kan la mid ah waxaana loogu yeeraa dayaxii dhiigga ama kii gaduudnaa, iyada oo loo eegayo kalarka gaduudan ee ka dhashay hooska dhulka ee qariyay qoraxda. Agost bishii 8 ee sanadkan, hay'adda Mareykanka u qaabilsan hawada sare ee NASA
waxay ku bixisay 1.5 bilyan oo dollar. Robotka la yiraahdo Parker Solar Probe waana mission aad loo wada sugayay sanado badan. Waxa uu gaaray robotkan meeshii ugu dhaweyd ee qoraxda ee la gaaro taariikhda, isagoo u jirsaday qoraxda 3.83 milyan oo mayl. waxaan la rajeynayaa in 24 mar oo kale la diri doono 7 sano ee soo socoto ilaa qoraxda laga gaaro. dhabtii waxaa aad u adag in qoraxda loo dhawaado maadaama kulaylka iyo falaaraha ka soo baxaya ay aad u adag yihiin in loo dhawaado. Luka Modric oo u dhashay dalka Croatia una dheela kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa ku guuleystay xiddiga ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka, waxaana kula tartamay xiddigaha reer Portugal Cristiano Ronaldo iyo xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah. Luka Modric ayaa dhigay taariikh cusub kadib sanado badan oo ay ciyaaryahanada Ronaldo iyo Messi ku tartameen abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan caalamka, balse waxa uu noqday xiddigii soo afjaray 10 sano uu tartan u dhaxeeyay labadan ciyaaryahan. dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta koobka adduunka ayaa lagu martigeliyay wadanka Ruushka sanada 2018. xulka kubadda cagta Faransiiska ayaa ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka oo kama dambeyntiisa lagu qabtay magaalada Moscow kadib kulan ay la ciyaareen xulka wadanka Croatia. waa koobkii labaad ee adduunka oo ay Faransa qaado tan iyo koobkoodii ugu horeeyay sanadkii 1998 marka oo iyadu martigelisay. kumanaan dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda France ee Paris kadib guushaas aad ku weyn ee koobka adduunka sanada 2018 oo Russia lagu martigeliyay.